shirkan jaraa'ida wakiilka dawladda Turkiga oo fadhiya Somaliland oo ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa wuxuu kaga hadlay inqilaabkii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga waxaanu sheegay inay aad uga xun yihiin kana soo horjeedaan isku daygaasi ay ciidamada militariga Turkiga ku kaceen waxaanu sheegay in ay ka soo horjeesteen inqilaabkaasi shacabka dalka Turkiga kuna hambalyeeyo sida dawladooda u garab istaageen isla markaasina ay u ilaaliyeen dimuqraadiyadda iyo horumarka wadanka Turkiga. On the evening of July 15, a faction of the Turkish armed forces attempted to stage a coup in various cities of Turkey, particularly in Ankara and Istanbul. This was a terrorist campaign, hurted our nation a lot. koox ka mid ah ciidamada hubeysan ee Turkiga ayaa isku dayay inay inqilaabaan magaalooyinka kala duwan ee Turkiga gaar ahaan Ankara iyo Istanbul markiiba waa la fahmay inay ahayd fal argagixiso oo kuwii ka dambeeyay dadkoogii ay rasaas ku rideen buu yiri saraakiishooda ay khiyaameeyeen waxaanay argagixiyeen baarlamaanka iyo xafiiska madaxweynaha wakiilku isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay intii ugu badneyd ee ciidamada hubeysan ay ku kaceen isku daygan inqilaabka waxa ay ahaayeen xubno ka mid ah ciidamada cirka ee jandarmeriga oo ka qayb galiyay shirqoolkaasi booliska iyo xirilaaliyaha guud isla markiiba waxay qaadeen talaabooyin laga maarmaan u ah sidii ay u fashilin lahaayeen isku daygaasi gebiyahanba waxa ay dadweynaha Turkigu fashiliyeen inqilaabkaasi dhicisoobay argagixisadani waxay isku dayeen inay ka baahiyaan telefishinka qaranka ee TRT iyo inay weeraraan warbaahin gaar loo leeyahay intii uu socday howlgalkani ay qaadeen kooxdani inqilaabka ku kacay waxa la qabtay 7500 oo qof halka 218 ka mid ah ay xidhan yihiin 24 qof oo ka dambeeyay inqilaabkaasi ayaa dhintay howlgalku wali uu socdaa buu yiri cadeyninta laga helayo kuwa xidhan wakiilku isagoo hadalkiisa si wata ayaa wuxuu sheegay waxa nasiib darro buu yiri in 248 muwaadiniin la dilay halka 1500 iyo 36 ay dhaawac yihiin 60 ka mid ah kuwa dhintay waa boolis 3 ciidan iyo 145 muwaadiniin 8 ka mid ah kuwii ka dambeeyay inqilaabka ayaa galay Greega oo ku baxsaday diyaaradaha loo yaqaan helicopterka waxaan rumaysanahay inuu inqilaabkani ka dambeeyay kooxda Fethullah Gulen Groups dawladda ayaa si joogta u cadeynaysa ujeedada argagixisadani iyo hogaamiyahooda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga golaha baarlamaanka iyo shacab weynaha Turkiga ayaa ka guuleystay dadkii isku dayay afgembiga waxa ay la hor istaageen dimuqraadiyadda iyo talinta sharciga wakiilkani ee dawladda Turkiga u fadhiya dawladda Jamhuuriyadda Somaliland shirkan jaraa'ida ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa shaaca kaga qaaday in gebiyahanba inqilaabkaasi dhicisoobay ay ka soo horjeedaan waxaanu isagoo hadalkiisa sii wata sheegay in ay inqilaabkani ka dambeeyay Sheekh Fethullah Gulen oo uu sheegay in uu mastaafurus kaga maqan yahay dawladda wadanka Turkiga waqti xaadirkan uu ku sugan yahay dalkaasi Mareykanka waxaana intii uu socday shirkani jarayd halkaasi lagu soo bandhigay video ka hadlaya sidii uu dhacay isku dagii shirqoolka ahaa ee afgembiga ahaa ee ka dhacay wadankaasi Turkiga waxa halkaasi ka muuqday shacab badan oo lagu garaacayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la arkayay shacabka wadanka Turkiga oo kolbadhina u cararaya iyagoo ku dhawaaqaya Allahu Akbar waxa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ka muuqday qiiq iyo uro cirka isku shareeray madaxweynaha dalka Turkiga ayaa wuxuu markiiba shacabka ugu baaqay isagoo ka soo muuqday TV gaar loo leeyahay inay shacabku isku soo baxaan isla markaasina ay taageeraan dimuqraadiyadda iyo horumarka ka tisqaaday wadanka Turkiga isla markiiba shacabku way ka jawaabeen waxaana iskugu soo bixin magaalooyinka waaweyn ee dalka خضر محمد محمود iyo Cabdi Umar Jibriil telefishin qaranka Somaliland xarunta safaaradda Turkiga ee Somaliland